السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan ajmal degan asxaabta ku xiran dhowrba social media waxaan idin leeyahay aniga dhankaygan uga xiran salaan ka timid qalbi idin jecel ha idin soo gaarto waa mahadsantihiin insha Allah bil kariim muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa dhul hadda ka hor aan hore idinkugu soo bandhigay dhul balooga ahaa ku yaalay Karsbaaley qaasatan masaajidka Daarul Xadiid oo qaarkiina iga dalbaday inaan muuqaalka dib ugu soo celiyo dadka inta yar ee ka dhiman boosaska harayna ay muuqaalkan uga bagtaan danna ay ka faa'iideystaan jaaniskaas eeriyadan hadda aan joogo masaajidka Daarul Xadiid waxaan joogaa iskuus waxaad aragtaan jaay afar jid meel ay iska galaan meeshaas afarta jid ay iska galaan waan idin macnayn jid walba meeshuu aado sidoo kale waxaan idin sheegayaa masaajidka intuu u jiro dhulka laamiga intuu u jiro iyo waliba qiimihiisa iyo boos walba boosaska kamida cabirkiisa iyo nafsiyan dhulka waakee dhulka la iibinayo waakee waxa aragnaa hadda afarta jiha inay naga xigaan goofaf iskooskan markaa taaganahay wadada aniga hadda aad taaganahay oo muuqaalka aad ka arkaysaan waxay ka imaadaa Daynile ama Daynila laga aadi karaa Daarusalaam kor waa laga aadi karaa jidkaas tooskiina hortiina u baxayaan wuxuu aadaa Macaane kan midig aadaya muuqaalka markaa fiirinaysid dhankaaga midig wuxuu aadaa ceelasha biyaha amaba markaska kaleeto ee Mir Indha Yare kan dhinacan bidix u soo leexanaya oo dhanka wuxuu soo aadaa asagana dhanka masaajidka Daarul Xadiid gurigaas weyn ee guryaha dhan idinkaga muuqdo weeyaan dhulka iibka ahna waa kan hadda kaamirada aan hoos ugu jeediyo isla goofkan kaamirada hadda hoos ay ugu jeedo ee aad arki kartaan sida uu u siman yahay weeyaan dhulka beeca ah masaajidka dhulkan wuxuu u jiraa 900 oo tilaabo socodkaaga caadiga ah 900 oo tilaabo oo socodkaaga lugtaada ah buu u jiraa masjidka meeshan hadaa ka lugeyso 900 oo tilaabo kadib masaajidka joogtaa masaajidka amaba dhulkan hadda aad joogno iskooska looga soo leexdo weydow baa la yiraahdaa weydow dadka qaarkiis ma garanayaan waan idin sharaxayaa markaa ka soo tagto X control afkooye ee aad soo aado wadada afkooye waxaa soo maraysaa X control amaba kuliyada markaa soo dhaafto waxaa imaanaysaa tabeelaha markaa soo dhaafto waxaa imaanaysaa weydow markaa dhaafto waxaa tagaysaa Macaane bimacnaa iskooska weydow iyo Macaane waxaa dhanka xamar xiga iskooska weydow markaa ka soo leexato dhulkan wadadaas waa laga soo aadi karaa markaa ka soo leexato weydow waxaad ku imaanaysaa 5 kiiloomitir iyo 200 daqiiqo dhulkuna waa kan hadda kaamirada aan idinkugu aadi kaamirada aad ka arkaysaan waa kan oodan iyo goofkan wareegsan dhankan kaamirada soo xigto buu dhulku ka bilaabanaya bimacnaa iskooska waxaa ka xiga 40 mitir saan ku qiyaasayo inuu ka bato 60 mitir 40 mitir iyo wado inuu noqdo macquul laano 40 mitir kadib iskoos baa imaanaya iskooskaas afarta jid iska gasho markii laga soo tago 40 mitir la soo socdo waxaa imaanaysa halka baloog ee iibka ah halkan baloog wuxuu ka kooban yahay 16 boos wuxuu noqonayaa 2 feeto 16 boos wuxuu ku noqday dhulka cabirkiisa wuxuu yahay 20 barkundisho bimacnaa waa 20 lagu dhuftay 15 dhulku markuu 20 bar 20 yahay 20 lagu dhuftay 20 markuu yahay wuxuu noqdaa baloogu 10 boos laakiin markuu yahay 20 lagu dhuftay 15 baloogu wuxuu noqdaa 16 boos 16 ka boos la kala baraa waxa loo kala qaybiyaa 8 iyo 8 oo kala jeesanayso 8 boos iyo 8 boos oo kala jeesanayso wadada jaayga ah waxay ka haystaan cabir ahaan 20 mitir feeta kasto hal boos birima ka ah feetadan 8 hal boos birima ka ah oo jaayga saaran feetada kale 8 hal boos birima ka ah oo jaayga saaran birimo waxa laga jeedaa laba jidle boos markuu laba jidle yahay waxa la yiraahdaa waa birimo feeta kasto oo labada feeta kamida horeyna birimay ku leedahay gadaalna birimay ku leedahay bimacnaa meeshay ka bilaabanayso jaayga ahna birimay ku leedahay meesha ugu dambeysana birimay ku leedahay booska 8aadna waa laba jidle jid 10ana hormaraa jid 10ana dhinaca ka maraa marka feeta kasta laba birimay leedahay
dadka hadda qaateen ee dhulkan inta ugu badan qaateen waa dad dhul isku xiran qaatay. qofku markuu qaato 6 boos, markuu qaato 4 boos, markuu qaato 5 boos ee isku xiran, asaga mudnaanta leh. wuxuu mudnaanta ku leeyahay booska koowaad ee jayga ka kacaya dadka ugu dhulalka badan la siinaya. sababtoo ah qof hal boos qaatay iyo qof 4 boos qaatay isku mid ma aha. kaamirada hadda waxaan u leexiyay dhanka deegaanka uusan xiginin. dhankan oo dhan deegaan ma xiga. ceelasha kor aa ka aragtaan, waxaas arkaysaan waxa weeyaan kor ceelasha deegaankaas. sidoo kale waxaa arki kartaan markaasaan usoo socoto oo iskuuskan ay imaado dhulka hadartaan aan idin tusinay. waa kaas masaajidka Daarul Xadiid. marka haddaan aadno dhan fiidiyowga dhanka midig haddaan ka aadno waxa weeyaan deegaanka ku yar oo ceelashii dhankaas loo aadaa. dhanka bidix markaa soo aadana waa dhanka masaajidka Daarul Xadiid oo xigo. dhulkan marka wuxuu aadisan yahay dhanka bidix, masaajidkana wuxuu ka xigaa qiblada, waana deegaanka dhinacu xigo. marka waxaan idinku baraarujinayaa qofkii hadda hal boos ka rabo ama 2 boos ka rabo wuxuu yeelanayaa dhulka dhaxda ah. qofkii 2 boos ka rabo wuxuu yeelan karaa birimada dambe ee 2 jidlaha ah iyo suguntada ku xigto. qofkii hal boos ka rabana dhaxdu ka qaadan karaa. inuu 5aad noqdaa macquula, inuu 4aad noqdaa macquula, inuu 6aad noqdaa macquula. saddexdaas boos mid buu noqonayaa. jaygu wuxuu ka noqonayaa 5aad, ama wuxuu ka noqonayaa jayga booska 4aad, ama wuxuu ka noqonayaa jayga booska 6aad. intaasoo noqonaa. boos walbo qiimihiisu waa $7,500. dhulkan aan joogno waa Daarul Xadiid. degmo ahaan wuxuu raacsan yahay Daarul Xadiid Karas Baaley. dhulka iibka ah waa dhulkan hadda kaamirada koofkan ee idinkugu macnaha kaamirada u sii jeedo ee siman ee taagga ah. waa koofka iibka ah. magaalada Xamar korkaas ka arki kartaan. maanan soo zoom kareynin laakiin magaalada Xamar oo dhan korkaas uga jeedaan. dhulkan qiimaha lagu iibinayana waa qiimaha idin sheegay, waa $7,500. hal senti lama dhimayo. qofka ku qaadanaya wuu ku qaadanaya, qofkan rabinna wuu uga tagaya. haddaad qaadanayso 10 boos iyo qofka halka boos qaadanaya waa isku qiimo. runtaan idin sheegaya aniga. waxaan intaas diidanahay dadku inay kadaal ka yiraahdaan maanan u maleyneynin. haddaan muuqaalka kugu sheegaya halka boos ninka qaatay iyo ninka 10 qaatay isku qiimaa laga qaadaya. qofkan ku qanacsaneen kulli dhul wuxuu yahay qofka yimaado uu garanaya. dhulkan qof walba oo imaado ee soo booqday arko maasha Allah inuu yiraahdo ma ahana wax ceeba ma laha. dhul ahaan iyo meesha uu ku yaalo istiraatiiji ahaan iyo qiimaha maanta uu joogo. oo aniga sababta aan idinkugu soo bandhigayaan ay tahay inaad ka faa'iideysataan maanta si berri aanan aniga nafteeda aanan u canaanan oo aanan u oranin low haddaa dadka maalinta ku baraarujin lahayd way ka faa'iideysan lahaayeen. maanta laakiin ilaah baa mahad iska leh. ilaah baa ii suurtageliya muuqaalkan inaan idinla wadaago. marka dambe ee la deegaamiyo ee eriyadan la dhiso waad arki doontaan qiimuhu istaago. waan idinla socodsiin doonaa oo mar walba waxaan ahay safiirka idin joogo Muqdisho ee dhuleed, ama Soomaaliya safiirka idin joogo ee dhuleedan ah. wax walba maqal iyo muuqaal ku arkaysan, waxba idinka ma qarinayo. qofka dal joogo, qofka dibad joogo, xog baan ku siinayaa, warbixin baan ku siinayaa, muuqaal ahaanaan ugu gudbinayaa asagoo gurigiisa joogo oo hal senti uusan ka bixinin. marka nagu sharfoo nagu dhiirigeliya inuu qof walba soo gal uu subscribe noo saaro. hadduusan u ahayn leegta aa wada saartaan aadna sii share garaysaan. waxba idinkama dhibayso. anigan waxay ii noqonay باور بمعنى waxay ii noqonay hor socod. kadaal baan usoo bixiyay muuqaalka. waxaan rabaa inaan idinkugu sharaxo si waadaxa. waan ka soo tagay iskuuska 4 jid ee iska jarayeen dhulku. marka wuxuu ka bilaabanayaa hadda meeshaan ugu dambeysay kaamirada ay idinkugu egtay waa dhanka bidix. kaamirada dhanka bidix ka fiir ee deegaanka uu xigo. waa markaa ka soo tagtay iskuuska meeshaan aan imaado qalaas waa joogtaaba dhulka. bartaan hadda kaamirada qabatay waa. فلله الحمد والمنة. dadka hore uga faa'iideystay isdiiwaan galiyay ee muuqaalka hore uga arkay ama aan muuqaal sidaan oo kale waadax u ahayn ka arkan waxaan leeyahay ka faa'iideysta. waa kan intiina hadda dhiman ee calafka u yeelan doontaan waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. boosas ama dhul magaalada laamiga weydo u jira 5 kiiloomitir iyo wax yar
danna masaajidka ama deegaanka ugu soo sokeeya 900 tilaabo u jira maanta biyo iyo koronto la gashan karo 7500 na ah garas baalay ku yaala ama area kale oo la jecel yahay ku yaalana kulli hadaa haysaa waa noo keeni kartaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi